kusoo dhawaada live trade toosa NY session maanta 23 July ilaa maad iska leh markastana imaadooda nusqnaatay maadaama isaga caawintiisa ayna waxba ahayn arrimeena adduunka dhanba kuwan waa tradeyadeennii horeeto ee maanta tradekan la soo qaadanay midkaana TB labadan trade live ay ahaayeen marka laga tago midkan oo soo strategy BDC ah oo aan qaatay suuqa Asianka waqti hore oo dhalinyarada mostly xiligaas ayna active ahayn marka hadda kan wuxuu noqonayaa trade-ka afraad sababta u qaadanaya trade-yadan oo dhan oo trade ma ee akoon kala duwan baa haya marka marba mid baa trade-yada ku qaata fahmaysa hal akoon maalintii laba trade ka badan ku qaato ma jiro sababta oo trade marka sidaas ugu ma in afarta trade ba hal akoon ugu trade garanayo arda suuqa ku cusub hadii aad tahay ama qof suuqa ku jira maalintii laba trade ka badan qaadan insha Allah hadii aad markaas sidoo kale akoon kala duwan aad hayno okay marka waxaan ku trade garan doonaa insha Allah modelka ICI biidnillah baa entry ku qaadan doonaa live suuqan insha Allah waxa rajaynaa inuu gaab ku yimaado already hadda uu joogaa sida arkaysan halkana sida arkaysan level baa ku haysta marka isaguna confirmation fiican buu siinayaa plus gaabkan 15 ka marka dabcan waa ICI all the way structure kan sida arkaysan halkan ka soo bilowday ilaa halka baynu dhigi karnaa laakiin haddaynu dhaqaaqan wave-kan xoogana soo dhacay inuu ka fiirino oo kaliya impulsive correction and pullback baa haysanaa impulsive correction impulsive so hadda waxaynu haysanaa pullback marka pullback to inay hesho ama nasashada meel ay ku dhamaan karto insha Allah halka baynu rajaynaynaa inay naga dhamaato oo next impulsive ilaa lowan ama ugu yaraan ilaa gaabka halka ku jira aynu ka soo faa'iideysan inta inay kidin taabo malena waa 5 minutes marka ka dhanka kale taa markaynu fiirino 15 xitaa gaabka waa leeyahay sida arkaysan waxa la yiraahdaa tartiga sel fiican baynu ka rabnaa isagana hadda pullback buu qaatay gaab buu joogaa sida arkaysan waxaanu ka rabnaa insha Allah isagana sel fiican 1 hour ku sidaas si lamida waxa way gaabkan lama soo buuxinin oo suuqa loo waday rejection xooggan baa la sameeyay insha Allah waxa rajaynaa hadda inuu weegiisa qaato 1 hour ku niyo 1 hour kan oo aynu markaas soo soo garanay fahmaysan okay marka 5 minutes kan insha Allah ima doona so hadda exactly waxa way waynu joognaa gaabkii sida arkaysan 5 ka 15 ka xitaa si lamida isagana gaabka waa haysta marka I think 15 ka fiican bayna trade ka qaato marka aynu isla aragno insha Allah 15 ka hadda waxa ka dhiman 8 minutes ka dhiman marka waxa doonaya insha Allah candle-kan inuu week soo qaato oo markaas uu candle-ka hoostiisa inoogu xirmo fahmaysa trade-kan insha Allah invalid buu noqonayaa ama ma qaadan doono hadii uu candle-kani waxa way dhaqaaq xoogaysi sameeyo oo gaabkan uu ka kormaro insha Allah ma qaadan doono trade-kan inkastoo gaabka halka ku jiro noqona xaalad kale qiimeynteeda u baahan iyo inaynu confirmation kala helno laakiin sida exactly hadda waxay noo noqon doontaa biidnillah in muxuu ahaa yani candle-kani oo hoos inoogu soo xirmo ama gaabka gudihiisa marka insha Allah aynu isla sugo oo saaxiib sida aad arkaysiin candle-ka hoos u badan tahay inuu ku xirmo 2 minutes dhiman marka waxaan ka qararayaa inuu asalku ugu weynaado haduu aad hoos u sii aado oo ku sii xirmo rejection xoogan uu qaato marka waxay noqonaynaa meelahan oo kale entry ka qaato ugu yaraan candle-kaas hay'isa ama dabadiisa dhiganaya asalka marka ugu weynaado waxay noqonaysaa continue mazaad soo hadda halkaas inaan ka qaato way noqonay si marka asalku uga yaraado oo u noqdo 31 bi insha Allah waxaana target garan doonaa conton b oo ay noqonaysa ilaa waxa la yiraahdo meelahan oo kale oo biinillah marka dhanka MT5 ka waxaan ku sel garan doonaa insha Allah 0.05 waan suuqa ku sel garan doonaa as you can see here trade-ka hadda waa active oo ku jira okay marka xaggan baa insha Allah entry point inoo ah marka inuu soo aragna insha Allah trade-kan iyo biinillah waxa way waxa uu ku dhamaado so alhamdulillah sida arkaysiin already boom I think it 20 beep so the trade kan break even insha Allah yala dhankan oo arki doontaan waxaan xiri doonaa insha Allah 0.02 you see hada trade ka waxa uu jira 0.03 baa uu jira marka so TB2 na wuu gaaray waxaan xiri doonaa insha Allah 0.01 kale
فاهميسا اوكا شكرا يا روحي روحي شكرا يا نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر. so ugu dambeyn alxamdulilah dhalinyaro sida arkaysaan tirarka full target buu na siiyey 52 bb aheyd waliba anagoo hal mar aanaa dharow dhaan gelin sida aragtaan ilaa halkaan kasoo qaadanay analyskanu sida uu qurux badnaa ilaa aynu targetkeena aynu qaadanay si markaasi life from A to Z aad ila socoteen rajaynayeen inaa wax ka faa'iideen nabadgelyo.